الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا سيد الورى، يا سيدي يا رسول الله، فقد هديت العباد إلى صحيح المسالك. ثم السلام على أصحابك الكرام وآل بيتك الأطهار والتابعين وعنا أما بعد. maanta wuxuu mawduuceenu ku saabsanaan hayaa biidni dal jabbaar soo dhaweynta bisha ramadaan ee barakaysan ee mu'miniinta ku ah dushooda waajibka. bishaasi ramadaan ilaahay subxaanahu wa caza wajal qur'aankiisa wuxuu inoogu sheegay warbixin caama oo guud ahaana noogu soo gudbiyey bisha inay waajib ku tahay mu'miniinta ilaahay iyo rasuul rumeeyey dushooda inay waajib ku tahay ilaa qof sharcigu u cuduray oo cudurdaar markaasi asagu looga helaya diinta waa meeshiisa. bisha ramadaan ilaahay wuxuu leeyahay kutiba calaykumus siyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum. ramadaanka waa la idinku waajib iyo farad yeelay ummadda nabi muxamedey sidii ummadihii idinka horreeyey ayagana looga dhigay waajib dushooda loo saaray. haddaba mu'miniinta baaq guud waxaan u jeedinaynaa rag iyo dumarba in ay bishaasi u diyaargaroobaan sida ay waajibka rabbaaniga u gudan lahaayeen. xilku waa xil culus, nabigeenna ayaa inoo keenay calayhi salaatu wasalaam. haddaba waxaa la doonahayaa bishaa in loo xanjeerto oo waajibaadkaasi la guto. bishu waa bishii deeqda iyo tabarrucaadda ay bixin jireen dadka waxhaysta. waa bishii nabigeenna muxamed calayhi afdalu salaati wasalaam sayidatuna alcaa'isha sida ay soo guurinayso waxay ku tilmaantay nabiga calayhi afdalu salaati wasalaam ajwada maa yakuunu min ramadaan. nabigu marka uu ugu deeq badan yahay, ugu wax bixin badan yahay, ugu sadaqa bixin badan yahay waa bisha ramadaan bay tiri. mar haddii bishaa la gaaro nabigu aad ayuu sadaqada u laba jibaari jiray, waayo ajirka ayada wixii sadaqada la bixiyaa ajirka la helaba aad u tiro badan. waa bishii qur-aanka asaga qur-aankeena la soo dejiyey. waa bishuu jibriil la kulmay oo la diraaseeyey qur-aanka markii ugu dambeysay ramadaanka ugu dambeeyey uu si fiican oola sii darsiiyey. haddana waa bishuu jibriil la kulankeeda ku badnaa nabigu calayhi afdalu salaati wasalaam. sidaa awgeed waa bishii furqaan la soo dejiyey. markaas baa nabigu wuxuu samayn jiray deeqda inuu laba jibaaro. haddaa mu'miniintow rag iyo dumarow wax ilaahay uu soo geliyey ay bixiyaanow mar walba sadaqada ku dadaalaya waxbixinta. gaar ahaan bisha ramadaan markii la soo gaadho ku dadaala inaad ilaahay iska iibiso, luquntaada inaad naar ka xorayso, sadaqada inaad badiso bixinteeda sida uu nabigaadu ahaa calayhi afdalu salaati wasalaam. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir. nabi muxamed waxaa ugu sugan mu'miniinta qiyaamada rajo ka qabaya ilaahay dayasho aad u qurux iyo qiimo iyo qaayo badan. ha ku daydeena nabigooda. haddaa nabigaada haddii aad imaam ka dhiganayso oo nabigaada aad raacsan tahay, jeceshahay sunnadiisa, walaalka mu'minka ahow, walaasha mu'minadda ahey, bishan ramadaan sadaqada wuu la wajibaari jiray ee adina laba jibaara. bishani ramadaan waa bishii la soo dejiyey qur-aankeenna munazalka. waa bishii la soo dejiyey suxufu ibraahim. waa bishii la soo dejiyey tawraatu muusa. waa bishii la soo dejiyey injiilu ciisa. bishu waa bishii kutubta dhan la soo dejin jiray. riwaayaadka waxay ku tacadudeen 21 bisha ramadaan qur-aankeenna in la soo dejiyey. markaa lagu soo ururiyey guri la yidhaahda baytulciza oo samadan xaggan dhulka u soo xigta bartankeeda ku yaallo. gurigaasaa marka fashay-an looga soo dejiyey nabiga calayhi afdalu salaati wasalaam. bishaasi ramadaan waa bishii waxyigeenna uu inoo soo degay.
سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث أوسو ورنيو كان سو قدبنا يا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وحوير النبي أن عليه الصلاة والسلام بشان رمضان هذا شهر رمضان كان وبشر رمضان أو إيدين يمد شهر قاسي ومتكي قرآن كدحيس اللسودجي ومتكي بور النبي عليه الصلاة والسلام شياطين تلحرحرهي وحبس لغو غرهي ومتكي البابها جنة لفرهي ومتكي البابها نار تلحرحرهي إمام النووي حديث كأمركو فصيري رحمه الله وحو يري شياطين تلحرحرهي حقيقنا وين نقون كرتا وين أيها سيدو حبس لغو تاغو أو لكتين ديو waxaa kale ay noqon kartaa sharkooda muuminiinta in laga difaaco dibkooda muuminiinta ayna soo gaarin waswaaskoodii in la dabro muuminiinta in laga xijaabo bishan ramadaan inay waswaasiyaan na way noqon kartaa isku duuduubo dibkiisaad ka nabadgelaysaa way hadaba waxaa kaloo nabiga ku sheegay xadiidka aakhirkiisa calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dhex jira habeen laylatul qadar la yiraahdo oo kun bilood acmaashi la sameeyo ka khayr badan halkaa habeen acmaashi la sameeyaa wardadaalay oo guntiga naysha isaga dhiga oo habeenkaas sidii ilaahay idin waafajin lahaa idinna ku dadaala bishu waa bil saa u khayr badane waa bil halka habeen ee ku jiro haddii ilaahay ku waafajiyo khayrkiisa iyo tawaabkiisa ka khayr badan kun bilood nin daacaysanayay waa 80 wamaa zaada sana nin daacaysanayay ama intii daaca la soo qabanayay waxaa ka khayrka badan halka habeena wixii ay ku xasilo tawaab aha bisha saad ugu barakada badan soo nasiib darama haday adoo awoodo oo lixaatu ku dhameystiran yahay oo cudurdaar sharciga uusan ku reebin hadaad adigu kasli iyo wahsi adooga hadho ama aad dacati ku reebto soo nasiib darra kugu dhacdo qeyrka uu ku dhaafay ma soo midii la isiri ha lagu tartamo khayraadka ahayd ma سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهم أساق أبيه يهويدي بالله كرر للنقضي وحوير حديث النبي كورنا عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيام مال صدح جير آمين 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 صحابة ويابين وحيدين رسول الله محا صدح جير آمين أبتري وحوير جبريل باقي يمد صدح قولو هباري أنا صدح يقولوا آمين بانو إري وحو يريبوا لجبريل قفكي لبدي سوالد انت سوق قادو أن لو دم بدافن وأجيت كيدو يهي لبدا والد انتو أبار نما سماينين عقاب كوهلا ويو إلا إن هداد أبار نما سمايسا ثواب بدن بهير يدم بداف هدادو عاسي كو عاسي قرودنا ذنوب بدهليسا قفكي انتو لبدا والد سوق قادي أن ذنوب تيسيلا دافن oo ilaahay cawsan saamixin sida wayaga baari oo noqday awgeed abcadahu allah fogeeyo buu jibriil oo naar allah ku dhex fogeeyo raxmada ilaahay allah ka fogeeyo buu jibriil uu habaartama anna waxaanu idhi buu yiri nabi maxamed aamiin allah aqbalo ilaahay inuu ka fogeeyo qofka labaad nabigeena wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qofkii ramadaan intuu soo gaadho aan loo dambi dhaafin الله نار كفوجي يبو جبريل إلهي فوجي أنا آمين بانو إري معناها أن سو من وي وأن عبادة كودة دارين وأن كنت نايش السجاد لجن أو يصفوا ذايا ومحاكم معنا وتقلين دون تايل هذا ورهوجي إن بشك مركي دم عتصين ورانا وتقلين دون تمور بعضها يسع عمري ما مالكم موت باكورات تشتري حلو ونفتك كقاضي يكون شيء لا ورب الكعب كعبة ربي هذا كل أرتي كل ما تشن نفط هذا كوبانية بلا يشكتي كسدحات وحوي جبريل نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قف انتي أساق اللقوق أكشيغو وأساقو ميل جوغل يرهدو النبي محمد مقعي صلى شيغو وآنان كوكو صلين الله فقيو أنا آمين بان إريبولي نبي قو أكتي صلى وشيغو ومقعي صلى شيغو وأدكو صلين ويدو waxaad ogaataa jibriil inuu duceeyay nabi muhammedna aamin yiri hadii labadaas midna aamin yiri midna duceeyay maxaad u malaynaysaa
قفك كسلين ويا النبي عليه الصلاة والسلام محل الشاهد كأنه قدن لها رمضان كمركو جاره أو بشه قفك شرعي أو عذر دارين أو سومي وياه إنه سوق لهايو حبار جبريل حباري نبينا محمد عليه الصلاة والسلام آمين وأيري قفكاسي محل أمرين يسامرك مؤمنو محل أمرين إنه خير رجي ما ضمرين إن جبريل ميلو كدعي وملائكة أحد كأو فضل قبضنا نبي محمد وآمين كيري ومخلوق ورنا وفضل بضن إن أن لأقبلين ودعاء أي سنجيت كجارين مياض ملاين رجديس قبطا انتو جبريل كهباري وملائكة أفضل قبضن وأنبياء أوكينا وحي القرآن كسو دجيو نبي محمد وإلهي وحو خلقي أو فضل بضن وآمين أيري ما ضمرين إنay labada midna ku habaaray midna aamin ku yiri ay hadaba ku garamari hadii aad Ramadan soomi weydo oo amarka Ilaahay qaadan weydo rasuulkeena suuban oo naga soo gudbiyayna xurmeen weydo qaadan weydo xurmada ka dambaysa qofkeed xurmayn ay xurmatin ba'da isyan Ilaahi wa rasuulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tuma xurmada la qaadan wa kuma ahadka qowlkiisa la xurmayn oo la ixtiraami oo la dhaqan gelin hadii aad Ilaahayna caasiso رسولك محمد عليه الصلاة والسلام إلهي باكو يري صوم واجبان كاغا دغاي يوسو ديبي ما أحد بين شيء بوسو ديبي ما أحد وركا لكو دري بوسو ديبي لا والذي نفسي بيده صادق المصدوق باكا سو قاد أحد ورما أحد كأوغو رنتا بدن ونبي محمد با ينو سو غدبي عليه الصلاة والسلام أسنا يا كسو قاداي سحابته البررة الكرام الذين حموا دينه صلى الله عليه وآله وسلم من بعده من الكفرة والمبتدعة حدنا النبي محمد وحكسوا قاضي سحابتي سبار ريالك هايان أو شريعة حماه هذه الدفاع هذا إلالي قال يبدع لك إلالي أيها حدنا النبي إنه قصوا قاضي عليه الصلاة والسلام وركا ميزان انت اللي أقبول ليه إلهي كسوا بحي قرارك جبريل كسوا قاضي نبي محمد كسو قادي عليه الصلاة والسلام صحابي باريالك هايان هدنا كسو قادين أخا مؤمن كأهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحوك الله وكشيغي حديث كلا صلاة واجبك هي صلاة كلا انت ودا حيسو جمعة مركز تكتو جمعة كلا انت ودا حيسا رمضان كان مركز صومتو إيه رمضان كلا أنت اللي جاري وحلا واحد ذنوب سمايسي إن لقوا ضعف كواس حدوثا لا إيمان كبائر ووين ذنوب تسغائرتا والنوع والبؤ كارنوع والدرجة عند كبيرة ومدوين عن جارسنين صون كان والله ضعف صون كان وحلا وحود حيو ذنبي آسمايسي دمان إلهي واترتره يا جل وعلا رمضان كآسم تبي كترتري أما مدوين وكبيرة ده أيضا وحي أباهانتا يتوبت كان iyo shuruudaha adag bay u baahan tahay qofku kow dambiga uu ku jiray inuu ka dhaxbaxo asagoo ku dhex jira haduu ilaahu ii dhaaf dhaho culimadu waxay yiraahdeen waa dambi labaad ilaahay baad ku jeesi oo ku leeleysaa waa sukhriyo waa inuu dambiga uu ku jiray marka hore uu banaanka ka istaaga laba go'aan waa inuu guntaa dib oo dambe inuusan waxa ugu noqonaynin laabtiisa waa inuu go'aanka ka guntaa hadaa aad ku noqotid leedahay ilaahu ii dhaaftaadu maxay qaban markaas go'aanka waa inaad gududaa inaad dib oo dambe ugu noqon doon saddex waa inaad shalayto iyo qoomamo ka keenta nadaama alla maxaa ii geeyey alla tala ayay maxaa waxa uu sameeyey waa inaad qoomamo ka keentaa saddexdaas markaad samayso oo ilaahay isu dhiibto ayaa dunuubta waaweyn laga toobad aqbalahaya haddii xaq bini aadam aha dambigan weyna shardi afraad baa lagu darhayaa saddexdii hore waxaa lagu dari saddexdii hore waa haday xaq ilaahay ahaayeen way oo ilaahay waxaan ka gashay khamraad cabtay oo kale waa zinaysatay oo kale dunuubta bani aadam